Baladweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dalka Soomaaliya waxay ku taalaa bartamaha dalka waana magaalo madaxda gobolka Hiiraan iyadoo uu soo maro webiga Shabeelle ee ka yimaada dhanka dalka Itoobiya waxayna u jirtaa caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya 206 mayl oo u dhiganta 335 kilomitir waxayna u qaybsantaa 4 xaafadood oo kala ah Oktoobar, Holudaag, Kuushin iyo Xawataako waxaana mara webiga Shabeelle dadka degan waxaa lagu qiyaasaa 1 milyan iyo bar ruux waa magaalada labaad ee ugu dadka badan dalka Soomaaliya marka laga soo tago magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kalena ah magaalada saddexaad ee ugu dhulka weyn dalka Faysal Cismaan Maxamed oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Baladweyne ayaa ka sheekeynaya horumarka ay sameynayso magaalada Baladweyne dhismooyin waxa ku soo kordhay magaalada oo inta badan ma sha Allah ah oo daarada dheer iyo sidoo kale into xarumo ganacsi oo si qurxan markaasi loo dhisay iyo shirkado ganacsi marka fiirisa marka garoomo sidoo kale into kubadda cagta oo cooska macmalka ay yaalaan oo xitaa xilliyada habeenkii iyo maalintii intaba lagu ciyaaro kubadda cagta aad oo muuqaalkiisa u soo fiicnaana xilliyadan dambe gawaaridoo kale markaan ka hadlay xitaa waqtiyadan dambe aad oo markaasi baawuro casri ah oo nooca raaxooyinka ah ku soo badanayay oo nooca raaxada ah magaalada dhismooyinka sidoo kale horumar ay ka sameynaysa magaalada Baladweyne aaday markaasi bilicdeeda ama muuqaalkeeda aad u soo qurxoonaysay xilliyadan dambe ama sanadadan dambe dhibaatooyinka ka taagan Baladweyne ayaa ah in magaalada muddo ku dhow 4 sano aanan laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga iyadoo si isku mid ah u saameysay bulshada iyo magaalada Cabdirashiid Cali Iimaan oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan Baladweyne ayaa maamulka gobolka Hiiraan iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay in lacagta shilinka Soomaaliga dib loo soo celiyo wuxuuna sheegay in dhibaato fara badan ay ku qabaan isticmaalka lacagta dollarka magaalada waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka waxa ka codsanaynaa cid walba oo gacan ka geysan karto anything qof walba oo gacan ka geysan karo sidii magaalada Baladweyne ay lacag shilin Soomaaliya u heli lahayd qof walba ka gacan ka geysan karo sidii lacag shilin Soomaaliya u heli lahayd ay ma sha Allah ay magaalada u baahan tahay ay shacabka u baahan yahay oo ganacsatada u baahan tahay maanta qofka hadduu ku tuugsado xataa walaalo wax ii taag hadduu ku dhaho lacag aasiisa xataa cariiray kugu tahay inaad taleefanka soo qabatay noqonaysaa taleefankii waa ka waasanaysaa ayay shaaha la cabi jiray kabaha la casaysana wax walba cuniga ugu yar iyo qofka ugu weyn maanta wada London qof jooga kaleena wada noqdeen wada dollar bisaala adeegsada waxa waay hooyo tagni igad iyo aaba tagni igad telefoon la wataa qofka had maanta markuu lacag wato waa inuu telefoon wataa bis marka problemka ka jiro waa problemka ma hadda aan ku sheegay oo lacag la Cabdifataax oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Baladweyne ayaa isna si lamid ah baaq u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna sheegay in maamulka Hirshabeelle uu curdan yahay oo na awoodin in uu soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga ka shakhsiyan anigu waxaan ku talinayaa in maamulka gobolkan ka jira ay soo celiyaan lacagta shilinka Soomaaliga 2017 dhamaadkeedii ilaa 2019 dhamaadkii lamaana soo celin lacagta shilinka Soomaaliga dadka waxay ku maamahan Baladweyne waxay ka tirsantaa gobol ka tirsan Ingiriiska ama London sidaas waxa keenay laajil dhowr sano kadib lamaana isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga waxaan jeclaan lahayn in la soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga ee nala ka dhaafo lacagta afka qalad ee lagu yiraahdo dollarka dadka dollar bay la qabsadeen dollar lama wada awoodo maskiinku wuxuu u baahan yahay lacagtana ma awoodo inuu telefoon soo gato adigu tuurtid lacagta shilinka Soomaaliga waxay ka kaabaysaa qofka miskiinka in adigu awoodid oo aad si kartaa si sadaqadan aad iska bixisid lacagta shilinka Soomaaliga waxyaabo badan ay soo kordhisaa oo waxa kamid ah in uu dalka shaqeeyo oo muxuu ahay ay dadkii bulshada ganacsatadii ay shaqeeyaan ay wax ku soo kordhiyaan dalka balse hadii EPC balaas wax la yiraahdo ama lacagta dollarka kaliya lagu soo koobo ma aqbalayno in ay sii socon doonto ganacsiga sida hadda ay jirto waxa ka jira magaalada lacag la'aan aad u daran lacag la'aantaasi waxa sababay shilin Soomaali la'aanta awgeed wasaaradda maaliyadda ee dawlad goboleedka Hirshabeelle gobol tan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ka codsanaynaa inay soo celiyaan lacagta shilinka Soomaaliga Hirshabeelle waa maamul urdana ma awoodo inuu soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga balse dawladda dhexe Soomaaliya waxaana ka codsanaynaa mar walba oo u taaganahay inay soo celiyaan lacagta shilinka Soomaaliga intaas ay ku soo koobaan Isxaaq Rashiid Maxamuud galmudug TV Baladweyne